assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga. barnaamijkeena waxaan kusoo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyey suuqa kala iibsiga. Liverpool oo dhammaystirtay soo bandhigtay islamarkaasna ku dhawaaqday saxiixa Cody Gakpo. bal Gakpo nambarkee ayuu u xiran doonaa Liverpool? maxaa uu ka yiri saxiixiisa? Jurgen Klopp oo asaguna ka hadlay saxiixa Cody Gakpo muxuu yiri? wararkii ugu dambeeyey ee soo qaadan doonaa waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa Enzo Fernandez, laacibka khadka dhexe ee xulka Argentina oo kusoo jeeda London iyo kooxda Chelsea iyo weliba Arsenal oo Mikhailo Mudryk si tallaabo ah saxiixiisa ugu soo dhawaanaysa iyo sheekooyin kale oo xiiso badan ayaan idin hayaa. kusoo dhawaada barnaamijka intaananse barnaamijkeena u gudagelin, fadlan muuqaalka laagta saar, channelkana subscribe-ka ugu cimaamad nagu soo bir si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga iyo guud ahaan kubadda cagta. mahadsanid. waaya saaxiibayaal, barnaamijkeena haddaan ku bilaabno, Liverpool oo soo bandhigtay saxiixa laacibkeeda cusub ee Cody Gakpo. bogga ay baraha bulshada ku leedahay kooxda Liverpool ee rasmiga ah ayaa lagu faafiyey sawirada laacibka cusub ee kooxda Cody Gakpo oo xiran fanaanada Liverpool ee Reds iyo nambarka 18. sida ogtihiinba Cody Gakpo oo aad loola xiriirinayay sanadkii hore iyo sanadkanba inuu ku biiri doono kooxda Manchester United ayay Liverpool si lama filaan ula soo wareegtay iyadoo kasoo afduubatay kooxda Manchester United. Liverpool ayaa saxiixa laacibka ku dhamaystirtay lacag gaaraysa 45 milyan oo giniga sterlinka ah iyadoo heshiis kala gaartay kooxda PSV Eindhoven saxiixa laacibkan. Cody Gakpo ayaa maanta yimid wadanka Ingiriiska asagoo tijaabada caafimaadka halkaas ku maraya, isla markaasna dhamaystiri doona inta ka dhiman heshiiskiisa asagoo bisha January 1 kusoo biiri doona kooxda si rasmi ah, isla markaasna noqon doona ciyaaryahan rasmi ah ee kooxda Liverpool. macallin Jurgen Klopp oo ka hadlay saxiixa Cody Gakpo ayaa yiri: waa wax aad u wanaagsan inaan dhammaystirno heshiiskan. waa inaan iraahdaa qof walba oo ka qayb qaatay wuxuu sameeyey shaqo aad cajiib u ah. ugu dambeystii waxaan manage garaynay inaan la soo seexano ciyaaryahan waqti badan la yaqaanay quality-giisa, kaasoo aan aaminsanahay inuu awood u leeyahay inuu yeesho mustaqbal aad u wanaagsan. waxaa jira waxyaalo badan ood ku jeclaan kartid Gakpo. isagu waa 23 jir keliya, balse wuxuu leeyahay khibrad aad u wanaagsan, ayuu yiri macallin Jurgen Klopp. Cody Gakpo oo asaguna kusoo borisiisa Liverpool erayo kooban ka yiri ayaa yiri: waxaan dareemayaa dareen aad u wanaagsan iyo xiiso. waxaan runtii aad ugu xiiso qabaa inaan bilaabo tababarka isla markaasna aan u ciyaaro kooxdan aadka cajiibka u ah, ayuu yiri Cody Gakpo. runtii ma rabo inaan wax badan ka iraado Cody Gakpo iyo saxiixiisa Liverpool uu kusoo biiray, maxaa yeelay waxaa jira muuqaal dhan oo dhammaystiran oon arrintaas kaga hadlay waxyaalaha uu Cody Gakpo kusoo kori karo Liverpool, waxyaalaha uu ku fiican yahay iyo waxa ay jamaahiirta Liverpool ka firi karaan. haddii aad rabtid inaad muuqaalkaas daawatidna channelka ayuu ku jira, ood ka daawan kartaa, ama marka uu muuqaalkan dhammaado ayaan qaybta ka sare kusoo saari doonaa haddii ilaahay idmo. Cody Gakpona waa ciyaaryahan Liverpool ah, reer Liverpoolna waxay bilaabi karaan inay markaan u dabaaldegaan heshiiskiisa ayaan dhihi karnaa. markaana dhan kale haddaan fiirino saaxiibayaal, Arsenal ayaa kusoo dhawaanaysa inay heshiis kala gaarto kooxda Shakhtar Donetsk saxiixa laacibka garabka kaga dheela ee Mikhailo Mudryk. Arsenal ayaa aad u xiiseynaysa inay sanadkan laacibkan la soo wareegto, isla markaasna ay ku buuxiso booskii uu ka dhaawacmay Gabriel Jesus. Mikhailo Mudryk oo asagana la aaminsan yahay inuu aad u danaynayo inuu Premier League kusoo biiro, isla markaasna uu qayb ka noqdo kooxda Premier League hogaaminaysa ee Arsenal, ayaa la aaminsan yahay inuu kooxda Shakhtar Donetsk ku buush gareynayo inay saxiixa dhamaystiraan. Shakhtar Donetsk oo iyadu aaminsan in Mikhailo Mudryk uusan ka raqiisanayn Anthony iyo weliba Jack Grealish oo Manchester City iyo Manchester United ay lacag 100 milyan ku dhow ka soo bixiyeen, ayaa doonaysa in Arsenal ay dalabkeeda kor u qaado, isla markaasna ay lacagta wax ku darto. Arsenal oo laga soo diiday ama Shakhtar Donetsk ay ka soo diiday dalab 60 milyan ah ayaa ayadana la rajeynayaa inay dalabka wax ku dari doonto, isla markaasna ay gaari doonto ilaa 70, halkaas oo la aaminsan yahay in laacibkan heshiiskiisa lagu gaari karo. Mikhailo Mudryk oo asagu sida la aaminsan yahay san hore usoo sheegnaba doonaya inuu Arsenal kusoo biiro, ayaa kulankii kooxda ay Arsenal la dheeshay kooxda West Ham barihiisa bulshada soo dhigay sawir asagoo oo daawanaya ciyaarta, taas oo sida la ogsoon yahay ka dhigan inuu muujinayo inuu kooxdan oo danaynayo inuu kusoo biiro, isla markaasna oo sii daawanayo ciyaarada saaxiibadiisa uu la ciyaari doono dhowaan. Mikhailo Mudryk waa laacib aad u xiiso badan, mid ka mid ah da'yarka ugu xiisaha badan ee dhanka weerarka ee suuqan kala iibsiga la raadinayo. Arsenal ayaa aad u danaynaysa, waana ciyaaryahan aad u xiiso badan. 10 gool ayuu u dhaliyay sanadkan kooxda wadanka Ukraine ka dhisan, isagoo 3 gool dhaliyay Champions League 6 kulan oo dheelay group stage-ka. waxaan soo geli doonaa mar dhow muuqaal aan Mikhailo Mudryk iyo ciyaaryahan nooca uu yahay iyo waxa uu Liverpool oo Arsenal kusoo kori doono aan kaga hadlayo. marka haddii aad taageer Arsenal tahay
la soco ayaan ku dhihi doonaa muuqaalkaas oo aan mar dhow soo geli doono bartaan aan ku leeyahay youtube-ka ee Cafe Sports. kooxda Chelsea ayaa iyaduna kusii dhowaanaysa inay la soo wareegto Enzo Fernandez, laacibka waddanka Argentina ee dhowaantan ku guuleystay koobka adduunka. daayarkan oo ku guuleystay daayarkii ugu fiicnaa ee koobka adduunka sanadkan ayaa lacag aad u weyn lagu doonaya iyadoo la aaminsan yahay inay Chelsea lacag gaaraysa $100 milyan ay ka gudbi doonto. Chelsea oo u muuqata inay tahay kooxda kaliya ee Enzo Fernandez awoodda inay suuqa kala iibsiga sanadkan kala soo wareegto ayaa la soo sheegayaa inay wadahadal la bilowday agentigiisa iyo kooxda uu dheelo ee Benfica oo iyaduna u muuqata in aysan diyaar u ahayn inay laacibkan gado ama aysan jirinba wax ku qasbaya oo doonaysa inay lacag qaaliya ay ku hesho ayaa la aaminsan yahay in haddii la gaaro ama loo dhowaado lacagta ay ku doonayaan ay iska fasixi doonaan laacibkan inkastoo heshiiska ay kula jiraan uu yahay mid waqti dheer ah. wararkaas ayay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee suuqa kala iibsiga. inta aan muuqaalka xiga ku kulmi doono waa Kaafi Cabdullaahi oo idin leh nabadgelyo. haddii aad nagu cusub tahayna fadlan channelka subscribe-ka ugu cimaamad, muuqaalkana laagta saar si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga iyo guud ahaan kubadda cagta ee ku saabsan kooxdaada. mahadsanid.